iyo geedi nololeed qaybta inan iyo hooyo. noloshii asalka ahayd ee xoolo dhaqatada ka soo jeeday dadku iskuma dhex qubnayn oo ma ahayn geelba sibir godan. qof weliba waxa uu ku qiimaysnaa kaalinta uu nolosha ku leeyahay iyo raganimadiisa oo waa tii la yidhi lax weliba waa shilalka lagu qalo ama lax weliba waa halka ay isdhigto. sidaas ayaa loo kala gurnaa. sidaas ayaa qof weliba maqaam iyo meeqaan u lahaa. waayadaas wakhti ka mid ah ayaa hooyo inan ay dhashay oo jaaribnaan iyo jookh isku darsatay goor subax ah inta ay aqalka la gashay u soo jeedisay in ay u dhisto wiil qurux badan oo uu walaalkeed dhalay. quruxdu wakhtigaas tixraac ma lahayn ee waxaa meel mar ahaa qiimaha iyo raganimada uu qofku leeyahay. inantu waa guudadley mudbaxday oo qurux iyo qiimi isku darsatay. taa waxaa u dheer hankeeda iyo ku talagalkeeda oo ahaa in ay guursato wiil u dhigma oo nolosha midba dhinaciisa ka xaslado. inantu wiilka inaabtigeed ah ee hooyadeed soo hordhigtay warkiisa waa haysaa. waxay u feedhanaysaa wiil u dhigma oo ay raganimadiisa magac iyo maamuus ka heli doonto oo astaamihii raganimadu ku dhan tahay. waayo nolosha tacabka iyo raganimada ayaa dadka kala hufa. codsiga hooyadeed inantu subaxdaas way ka aamustay. waayo xaq dhowr ayay hooyadu ku leedahay. laakiin aamus ku macnaynayaa waad maya dadban. mar kale ayay goor subax ah hooyadii u yeedhay inanteedii. aqalka ayay la gashay oo waxay su'aashay weydiintii inanka la xidhiidhay. laakiin inantii hooyadad waxay markana ugu jawaabtay aamusnaan. mar saddexaad ayay hooyadu su'aashii ku celisay iyada oo yara cadhaysan. subaxdaas ayay inantu miir dilaacday. si asluub iyo anshax ku jiro ayay hooyadeed u hoga tusaalaysay si hooyadeed dulucda ula garato. waxay istidhi bal hooyadaa si fiican u qanci. waxay tidhi wiilo ma qarmoona khayraanta cali mana qasaalnayne gaashaanku waa qolof warmuhu qaalabeel ma lehe gartoo lays qabsaday geedahoo laysku qalanayo kuwa hadalka loo qaybiyey qaadha noqon maayo qayladu hadday soo dhacdo geela kala qaado inta uu sangaha soo qabsado qaash ka rogan maayo qab hadday martidu soo tidhaa neef u qali maayo qoton been ah qurux aan wax tarin qoobka haygelinin. gabayga ama badda gabayga waxaa gaar u lahaa guudcadda aqoon iyo aftahamo gaar u leh. marka koowaad tuducan gabayga ahi waxa uu ka markhaati kacayaa xeeldheerida gabdhuhu huwan yihiin. waxaa kale oo uu ka markhaati kacayaa ujeeddada macnaha leh ee nolosha iyo waayaheedu qofka u leedahay. inantu waxa ay hooyadeed ku qancisay ujeeddooyinka ay nolosha ka leedahay oo weliba tuducan waxay raacisay ereygan culus. waxa ay tidhi hooyo haddii aad inanka eedo u tahay hadda anigana adiga ayaa i dhalay. saddexda qodob ee ay gabadhu cuskatay waa saddexda ina rag macnaha ku leeyahay waa doodda deeqda iyo dagaalka. haddii tuducyadaa lasii lafaguro waa ta koowaade. hal waxa ay tidhi gabadhu khayraanta cali sitaa wax in la xidho u qalanta ma aha. berigaas maryo ma jirin. waxaa la xidhan jiray harag dhuug la odhan jiray oo harag riyaad ah. wakhti kadib waxaa loo gudbay isla haraggii oo la magdiyey inta la xoqoy la aslay. markaas waxa ay gabadhu leedahay huga cali sitaa waa mid aan qasaalnayn oo ka soo jeeda haraggii waayadii hore la xidhan jiray. labo waa talabaade gaashaanka uu sitaa ma aha kii geesiga. berigaas geesigu gaashaanka uu ku dagaalamayo waxa uu kala bixi jiray wiil la dilay wiishana sida loo dilo ee haragga loogala baxaa waa ay adkayd. waxa ay tidhi inaabtigay gaashaanka uu sitaa waa saan biciid oo waranka dhagaxa ka samaysan celin maayo. waxa ay u jeedaa inaabtigay hubkii geesiga ma sito. saddex waa ta saddexaade inaabtigay aftahan ma aha oo haddii geed loo baxo isagu ka mid noqon maayo kuwa hadalka iyo aftahamada loo xusho. afar inantu waxa ay hadalka iyo baanaha ku soo gebagabaysay inaabtigay ku qaadan maayo qoton iyo qurux aan ka mid ahayn ujeeddooyinka ina rag looga baahan yahay. la soco qaybaha dambe oo nagu xidhnoow. waxaad noo tahay qof muhiim ah hana dhaafin inaad gujiso barta guduudan.